آله وأصحابه لما وضع الصوماليات مركز أول جوتوا سلامية كان هان بهذا وباهنتا أو أسود جدا تي في قرنك يا أنت كله وباهنتا قرنك أسود جدا يوم أنت كله ومدة الصوماليات تاني هذا أسود جدا وحنا ربعنا هناك حديو دولة الصومالية وحواجب كسارية هي إن إلى السوق نبدأ بالشدة أين كنت لا شوح الله لا يوحي لبعض بالشدة ودع لها جريني أنت مسابسا صادق عمر حسن وأحتليه غريب كدول كبنادر تولد هذه أردت أن تلاقي قادو مع ساعات وهريسي أي تلاقي قادي كرتي لكن لما قرشين إنك أسرتي سئين واحد تلاقي قادو حدا أو أكسر ولين ما فربنا واحدنا أو كجرة دولد وما أردته إن هبيراته ماشي هذا ودقيه هاي أو حافظوا بالشر نبضون أي دقيين إلا وير واحدنا أو كجرة مجرم حافظها نبضون أو بالشر أي دقينت هاي أو عن رنتي أبدا بالشر عرور يهوير يطد شعبه وير كذا واحدنا أو دولد أو كجرة مجرم مرة أقرش اسمه marka dawladdu waxay ku baaqaysaa in aan arrimahaas dadka buunbuuninaya oo ka dhigaya in oo weerar lagu soo yahay in arrimahaas ay faraha kala baxaan oo ay ogaadaan in ay arrintaasi ay tahay arrin haba yaraatee dowladda Soomaaliyeed aan u qorshaysanayn ma habboona in dhufays laga dhigto xaafado nabdoon nabad ah oo lagu dul abaabulo dagaal iyo bulsho iyo dagaal iyo rabsho aan loo baahnayn waxaa kaloo ayaduna muhiim ah in bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan gobolka Banaadir aan baaq u dirno baaqaasoo ah gobolka Banaadir wuxuu soo dhismayay muddo dheer 10 sano ugu dambeysana horumar wanaagsan ay u gaaray oo xag walba ah dadkani waxa weeye dhididkooda iyo dadaalkooda ay iskuulla ku dhisteen waxay ku dhisteen isbitaallo waxay ku dhisteen jidad waxay ku dhisteen magaaladoodii mana u baahna maanta haba yaraatee wax dib u dhiga ama khalkhaliya dowladduna idaa hormuudka ah in la ilaaliyo horumarka iyo nabadda magaaladan iyo guud ahaan waddanka Soomaaliyeed marka bulshada Soomaaliyeed meesha degan waa bulsho nabdoon yaan dhibaato la dhex geynin yaan dushooda wax lagu abaabulin wax aan dowladda u qorshaysnayn yaan laga been sheegin dadka kullu kale laga yaabo inay dana siyaasadeed ay ka raadinayaan ma habboona inay bulshadoodii iyo dadkoodii iyo shacabkoodii dushooda in ay dadka ku guubaabiyaan oo ay dagaal ku abaabulaan wax sharaf la maaha wax dowladdu raacsan taana maaha qodobka kale wuxuu yahay dad mas-uuliyiin ah ama hadda ah ama xildhibaana ah ama mas-uuliyiin hore ahay ama madax ahaa ayaa waxaad moodaa inay kala furfurka ciidanka iyo ciidanka qaranka Soomaaliyeed ay ka shaqeynayaan oo ay abaabulaan maleeshiyaad oo ay ka furfurayaan ciidankii qaranka Soomaaliyeed waxaan taasina cid ay dan u tahay male horaa loogu soo hingoobay horaa loogu soo gubtay ciidanka qaranka Soomaaliyeed ummadda Soomaaliyeed ka dhexeeya siyaasadana waa laga heshiin doonaa siyaasadda waa laga heshiin doonaa istijidka siyaasadda waa dhammaan doonaa kala furfurka ciidanka qaranka Soomaaliyeed oo dhibaato badan loo soo maray iyo dhiig badan loo soo maray kala furfurkiisa waxaan leenahay laga waantoobo cidana aysan ku dhiiranin ayaguna ciidanka qarankuna diyaar uma aha in maanta la kala furfuro waxay u taagan yihiin inay nabadeeyaan dadkooda iyo dalkooda oo ay cadowga ka hortagaan ayagaa lagu jiifa ayagaa lagu soo toosaa sidaan dhowr jeero hore u sheegnani nabadda beledka lagu haysto iyo karaamada iyo sharafta bulshada haysato ciidanka qaranka Soomaaliyeed ayaa saldhig u ah waana sidaan ku celinayno waa dadka ugu karaam badan ugu sharaf badan oo ummaddaanu ay ku jiifto ay ku soo kacdo ay ku ganacsato ay ku nadoon tahay marka ciidankaasi kala furfur ma yeeli doono cidda isku daysa inay kala furfurto oo maleeshiyaad ka dhigto oo beela u abaabushani kuma guulaysanayso waana guuldarro ay u soo reynayaan ummadda Soomaaliyeed sidaas darteed waxaan leenahay mar labaad iyo mar saddexaad waxaan ku baaqaynaa in aan dadka nabdoon aan la dhibaatayn dowladda Soomaaliyeed mar kale waxay ku celinaysaa inaysan xaafado dad nabdoon degan yihiin inay weerar ku qaadayn oo ay doonayso in arrimaha jira si nabdoon wax walba ay ku dhammaadaan aad iyo aad u mahadsantihiin. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.